Mar kale ayay isku diyaarinayaan in ay hubka dhigis ku sameeyaan Harare iyo sidoo kale ciidanka isi soo bahaystay, waxaana la qorsheynayaa oo taas ku feer socda siyaasadda lagu dhisayo 30,000 oo askari oo Harti ah. Waxaan idiin soo gudbin doonaa sababta reer walba loo dulsaaray gaadiid iyo sidoo kale hub in ay soo dhigaan gogosha Harti. Halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee kulamada socda, siciidan oo afgembi ku sameynaya doorashada Puntland iyo sidoo kale fahamka dadku ay ka haystaan xalkii Maxamed Siyaad Barre oo markaan loo adeegsanayo dagaalka rogaal celiska ah ee dib u qabsashada Laascaanood. Duqeynta Kenya ee arxan darrada ah ee dhulka Soomaaliyeedna cirka ayay isku sii shareeraysa saacadihii ugu dambeeyay reer miyi ayay ka taqalustay. Halkii ayay ku dambeeyaan qorshayaashii ay dabada ka riixayeen Somaliland iyo sidoo kale Djibouti kuna aadanaa sidii loo kala jebin lahaa ICC. Waxaan idinla wadaagi doonaa Muuse Bixi oo lala wadaagay talo degdeg ah oo ku aadan in uunan ciidankiisa ku sii hayn og kala diro ciidanka isla markaana beelaha uu dib ugu wargeliyo in ay samaystaan xuduudo iyo sidoo kale aagaga ay difaacdaan. Qaybta hoose aragtidaada noogu reeb kuna xirno wararka dhambalka wararka oo falogara page-ka. Aanu ku bilowna xog soo ifbaxaysa ayaa muujinaysa qorshaha lagu dhisayo ciidan xoog badan oo Harti ay leedahay, kuwaasoo gaaraya 30,000 askari. Waxaan idinla wadaagi doonaa qaabka loo dhisayo, balse marka hore xogo isi soo taraya ayaa muujinaya in aan fadhiga lagu sii jiri karin, oo ay tahay in ay tillaabo degdeg ah ay qaadaan ciidanka ku sugan og duleedkeeda, kuwaasoo doonaya in ay difaacyadaasi ay usii adkeeyaan sababo la xiriira dhinaca xuduudda. Warar aan helnay ayaa waxay xaqiijinayaan in ay jiraan dooxatooyin kala duwan oo labada dhinac isla markaana midba midka kale uu ku ugaarsanayo. Xogaga ICC ayaa diray sahamo iyo sidoo kale ilaalooyin kala duwan gudahana u galay magaalada Og. Sida aan xogta ku helnana waxay halkaasi ay ku jireen saacado badan, iyagoo ugu dambeyntii ka iibsaday agabyo kala duwan oo halkaa yaala. Waxaana xogta aan helnay ay tilmaamaysaa in ay suurtagal tahay in labada dhinac ay waqtiyada habeenkii ah ay xiriir jir sameeyaan. Waxaa la abuurayna sidoo kale kooxo sahamiyaal ah, kuwaas oo waqtiyada loo baahdo hagi doona madaafiicda, isla markaana hirgelin doona tab walba iyo qaab walba oo lagu weerari karo magaalada waqtiyada loo baahdo. Sahamiyaasha ayaa dhaqaaqa xilliyada habeenkii ah iyo sidoo kale gelinka dambaba, waxa ayna fariistaan meelo ka duwan ama aan laga filaynin. Xogaga ICC waxay isku ekaysiiyaan ciidanka, waxayna qaataan mar walba dariis aan lahayn shaabadaha ICC balse leh midka Somaliland iyo calankooda, waxayna qoryaha afkooda iyo sidoo kale meelo kaleba ay ka muujiyaan in ay yihiin Somaliland. Hagayaashu waxay isugu jiraan koox si weyn u taqaana bartilmaameedyada magaalada iyo sidoo kale rag si weyn u yaqaana sahanka iyo sidoo kale istikhbaaraadka. Warar aan helnay ayaana xaqiijinaya in suurtagal ay tahay in xogaga ICC ay weerar ku ekeeyaan magaalada Laascaanood oo u dhow ee Og ee xilligan noqotay xuduudda Somaliland. Sidoo kale waxaa jira dooxatooyin ay sameynayaan dhinacyada kale kuna aadan in la ugaarsado askarta iyo sidoo kale shakhsiyaadka aagga inta u dhaxaysa magaalooyinka Og iyo Gumeys maraya. Waxaa isi soo tarayana qorshaha siyaasadda dheer ee arrinta ICC iyo weliba deegaanada ku xiriiraysan. Beesha Harti ayaa waxay isugu laabatay talo, waxa ayna qorsheynaysaa in si degdeg ah loo dhiso ciidan tiradoodu ay gaarayso 30,000 oo askari, kuwaas oo difaaci kara deegaanka, sidoo kalena sii wadi kara dadaalada rasmiga ah ee ku aadan in la ballaariyo awoodda Harti. Warar ayaa xaqiijinaya in sidoo kale beelaha lagu wargeliyay in beel walba ay keento ilaa 5 gaari iyo hubkood, waxaana ay noqonayaan gaadiidkaasi kuwo la soo iibiyo isla markaana lagu soo biiriyo xogaga jira. Dhammaan hubka iyo gaadiidka iyo ciidanka jiray waxay noqon doonaan hanti guud, mana noqon doonaan kuwo la tirin doono, balse 30,000 ee la doonayo waa mid cusub oo ah dhiig cusub oo lagu biirinayo xogagan la doonayo in ay sii joogaan aagag kala duwan oo ka tirsan xuduudaha Somaliland iyo Harti. Waxaa intaasi sii dheer in qorshahan ay qayb ka yihiin beelaha daarood ee kale, kuwaasoo qaaraanka
iyo dhaqaalaha wax ka bixin doona, isla markaana ka qayb qaadan doona gunti gujiskan lagu dhisayo ciidanka xoogga badan. Waxaana xoogga iyo sidoo kale awooddaba ay noqon doontaa mid reer walba hibo uu keeni doono mid cayiman. Sida xogta aanu ku helayno, ciidankaas ayaa boqolkiiba 60 ka mid ah waxay ka imaaneysaa deegaanada colaaddu ay ka jirto SC, halka 30 kalena ay ka imaanayaan deegaanada kale sida Puntland iyo sidoo kale guud ahaan deegaanada kale hartay. Waxaana laga yaabaa in la ballaariyo isla markaana laga dhigo boqolkiiba 70 in ciidankaasi uu ka yimaado SC, halka 30 kalena uu ka imaanayo hartay. Balse arrintaasi waxaa soo taraya in Puntland iyo weliba dhankeeda ay si weyn u danaynayso in ay sidii caadiga ah ee ciidankeeda loo dhisi jiray ay ku sii wado, oo ayna ka qayb noqon qarankaasi. Taasina waxa ay muujinaysaa sida Puntland iyo sidoo kale SC ay ugu kala duwan yihiin arrimaha hamiga, hirgelinta harti midaysan iyo sidoo kale qorshayaal kale. Waxa ay ka mid yihiin habka geedi socodka ee uu ku guuleystay maamulka Khaatumo, isla markaana uu kaga adkaaday ciidankii 32 sano la dhisayay. 30 kun ee askari ayaa waxay noqon doonaan kuwo si degdeg ah xeryaha tababarka iyo sidoo kale xarumaha kala duwanba lagu tababaro. Waxaana qaybo badan oo ka mid ah ay noqon doonaan kuwo si toos ah u taga Puntland, Garowe, Galkacyo iyo Boosaaso. Dhinaca kalena aanu eegne, waxa ayna isi soo taraya dadaalada taa ku feer socda oo ay sameynayaan ciidanka Musabbixi. Waxaa isi soo taraya warar tilmaamaya in ay sii xoogeysatay oo cirka ay isku shartay duqeynta Kenya ay ka geysanayso deegaano ka tirsan Soomaaliya. Kenya ayaa irsifayn ku sameynaysa dhulka deegaanada gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, oo dhulka gacanteedu ay gaarto, waxayna si gaar ah u irsifaynaysaa dadka deegaanada gobolka Gedo. Arrintaas ayay kaga gol leedahay sidii ay u ballaarin lahayd xuduudeeda iyo sidii ay iskaga fogeyn lahayd dhammaan dhaqdhaqaaqa dadka Soomaalida. Waxayna si gaar ah u ugaarsataa una beegsataa beesha Mareexaan, oo ay u aragto inay khatar ku tahay danaheeda Soomaaliya. Warar aan helnay ayaa xaqiijinaya in qaar badan oo ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee ciidanka difaaca Kenya ee KDF in loo soo diray deegaanada gobolka Gedo, iyadoo weliba si degdeg ah loogu wargeliyay in ay fuliyaan duqeymo iyo weeraro toos ah oo ay la beegsadaan goob walba oo ay kaga shakisan yihiin inay tahay xarun isgaarsiineed, isbitaal iyo sidoo kale meel dadka uu ku badan yahay, iyo weliba meelaha ay degan yihiin dadka rayidka. Diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa gobolka Gedo saacadihii ugu dambeeyay waxay ka fuliyeen duqeymo dhiig badan oo ku daatay oo lala bartilmaameysaday dad shacab oo xoolo dhaqato ahaa, kuwaas oo si gaar ah loo beegsaday isla markaana loogu talagalay in nolosha la dhaafiyo. Warar isi soo tarayaana waxay dhinaca kale tilmaamayaan in madaxweyne Siciid Dani oo afduubtay doorashadii Puntland ka qabsoomaysay, isagoo weliba iskugu daraya 2 arrimood oo la xiriirta in maamulka doorashada iyo guddiyadeeda isagoo u maamulo, iyo sidoo kale taa beddelkeeda in dib gurasho uu kasii sameeyo arrinta doorashada, oo la furo shirar iyo sidoo kale isfaham guud oo lagu dhammaynayo doorashada si loo aado doorasho qof iyo cod ah. Arrinta kale ee socota ayaa ah inay si weyn markaan u eegayaan qaab walba iyo tillaabo walba oo ay qaadaan ciidamada iyo sidoo kale saraakiisha iyo siyaasiyiinta. Madaxweyne Dani ayaan hore looga hor istaagay in muddo kororsi uu samaysto, waxaana xilligan dooduhu ay ka bilowdeen magaalada Garowe, caasimadda Puntland. Bal dhinaca kalena aanu eegnay, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa adeegsanaya dhaxalkii uu ka tegay Maxamed Siyaad Barre, iyadoo weliba loo adeegsanayo dagaalada aagga gobolka Sool. Saanada dagaalka ee dhowaan laga qabsaday xooggeedu waa gaadiidkii dagaalka iyo sidoo kale saanadii uu tabcay Jaale Maxamed. Sidoo kale waxaa saacadihii ugu dambeeyay kusoo biiray arrintaasi qorshaha lagu xaraashayo qaar ka mid ah dhulkii danta guud ee degmooyin kala duwan oo ka tirsan magaalada Hargeysa, sida xaafadda Koodbuur iyo weliba sidoo kale qaybo kale oo ka mid ah degmooyinka aagga Gacanlibe, halkaas oo xukuumaddu ay iibinayso
dhulal kala duwan oo ku yaala. Mid ka mid ah dhulkaas ayaa la siisanaya laguna iibsanayaa $65,000 oo doolarka Mareykanka sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ganacsatada, waxayna xukuumaddu ay u muuqataa in ay si toos ah u bilowday qorshaheedan. Ay dooneyso in ay abaabulka dhaqaale ay ugu darto lacagta si loogu adeegsado dagaalada gobolka Sool. Dambaalka wararka sheergaree qaybta hoosan aragtidaada noogu reeb. Suurtagal ma tahay in Harti ay dhisto 30,000 askari? Flow Garage ka nabad.